extra money gan adisooba daaraha lagu dhisay hay ka timid waxa weeyaan lacagtii askarta la siinay lacagtii Soomaaliya lagu siinay Nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo maxay ahayd lacagta hay'adaha iyo maxay ahayd embassies kan iyo waxan oo NGO oo Soomaaliya ka shaqeynaysa oo Nairobi lacag ku cunaysa wadamadan aynu qaadka ka soo qaadanayna ma cunaan yakay laakiin inay noo soo diraan wadamo aanan waliba ku jeclayn weeyay inta badan waxa ay ku soo darayaan qaadkanimo ogin waxay noogu badan tahay hadda dhalinyarada waalan iyo waxaan oo dhan waa waxyaabahan qaadka ku jira lagu soo herbicides lagu daray weey maanta hadda Toronto halka dariiqa istaagtay oo Young Street ugu weyn Soomaa oo tiraada waxaan ahay ree hebel oo nin libaaxana oo reerkaygu waa cayn kana waa sida wasa maanta lacagta Soomaaliya loogu talagalay hadda qiyaasto waa billions of dollars weey mid ma qaadanayno oo dawaanaka qalbalayna ugu cunaha la inagu hayo arrin maalinta ka soo baxay dhibaatadii wixii ma kama hadlay laakiin waxa la igu maxaan sameeynaa ma ka joojinaa lacagta sidoo uga joojinaysaa wadda faqiira lacagta ka joojinina maamul u sameeya na tusa sidoo maamulaysiin tii markaad sameyn waayo daba iska wada fariist laakiin haddana lacagta budgetkaasi sanadka loogu talagalay Soomaaliya waa la cunayaa waxa lagu cunayaa hay'ad wallo oo wadankeeda ka timiday budgetka la siiyay dawladda uga celinayso soo ma loo isticmaalaya consultants baa lagu soo dirayaa inta soo lacag la siinaya guriyo Nairobi lagu galayaa qaaliya iskuuladooda u diranayaan maxay hayday bal waxaad arag u fiirsataa xamar inta safaaradood ka furan inta safaaradood ee xamar inta safarada Soomaali leh ayaanu maxay ahayd ka furan xafiis yani Soomaaliya u dirnaa ambassador halkay joogan maxamar bay joogan Nairobi fadhiyaan kharashkii ku bixi lahaa safaradaasi ee shaqaalaheena isticmaali lahaayeen ee marketkeena wax kaga soo iibsan lahaayeen ee dawladeena ku raaci lahaayeen ee shaqaale inoo qoran lahaayeen Nairobi baa laga fadhiisanaya فهمتي هي أدها United Nations كيف فديها نيروبي سند كي نصارى في واحد تيجي أفر وطن East Africa ونسكم مرة مركز delegation ما لا صعدة كله وأبغى كذا مسكرة واحد سوا مرة دو أفر وطن واحد هي أديسوبا دار السلام يوغندا كينيا يوغندا أفرتا وضبا سوامري waxaan u fiirsanayay dhaqaalahooda si isku bedelay dhaqaaluhu wadamada si isku bedelay Tanzania wax weyn kama arkaysid Uganda wax yaro extra wad aragtaa Nairobi markaad tagto iyo Addis Ababa dhaqaaluhu sidoo isku bedelay iyo waxa ka dhisan wax iyo waxa lacag wad arkaysaa lacagtaas inay tahay lacagta Soomaaliya way wadaqaaluhu wax weyn oo kale isma bedelin extra money gan Addis Ababa daaraha lagu dhisay hay ka timid waxa weeyaan lacagta askarta la siinay lacagta Soomaaliya lagu siinay Nairobi maxay ku dhisantay waa isli iyo maxay ahayd lacagta hay'adaha iyo maxay ahayd embassies kan iyo waxan oo NGO oo Soomaaliya ka shaqeynaysa oo Nairobi lacag ku cunaysa 2012 kii waxaan eegay budgetka Soomaaliya loogu talagalay 1.2 billion dollars waxa Soomaaliyana waxa gaadhay Central Bank $10 million $10 million out of 1.2 billion dollars حكي لعكت استقتي دبدا lagu cunay Soomaaliya cunin Soomaaliya cunteedin mani laakiin budgetka markuu ka soo baxo wadanka waa la cunaya kulleeyda inakina waxa laga 10 milyan isku yeelanayno laakiin waxa kale naga maqan uma jeedno taasi waa mid weey mid labaad markaad aragto statistics ka Afrika marka laga sheekaynayo
waddan walba wuxuu soo saaro GDP-giisu intuu marayo dhaqaalihiisu halkuu marayo waxa dhaqaale laga hadlayo dhaqaale wax ku saabsan oo dhan maabka Afrika markaad eegto Soomaaliya waa blank blank waxa kuma qorna because statistics ma jiraan waa waddan conflict ku jira oo waddan iyagu isku maqan waxay soo saareen ma jirto dawladii waxyaabahaasina waxay important u tahay ma malayn kartid xagga dhaqaalaha adduunka because waa waxyaabaha lagu xisaabtamo waddanka in lacag la geliyo iyo inaan lacag la gelinin oo dadka lacagaha Afrika gelinayay markay Soomaaliya eegaan information bay ka waayaan ay arkaan Addis Ababa 11% growth rate leh halkay gelinayaan lacagta 11% growth rate ka gelinayaan Soomaaliyana waa la bypass garanaya completely intaan Soomaalidu isku maqan tahay inna kala wala inuu maqan yahay rag baa noo tashanaya saynu baabina dadkan saynu uga faa'iideysanaa waxaan leenahay the longest coastline in Africa aan leenahay waxa waddankeena ku jira macdan cajiib oo malayn karayna oo maanta haddii aynu heshiino oo inuu dalkeena dhisano ay noqonayno Saudi Arabia bix noqonayaan waddankeenu haysta dad baa macdantan arkaya coastline kan kalluunka ku jira iyo waxa ku jira arkaya marka raba inay ka faa'iideystaan hadda adu ka faa'iideysan weydo dad kale ka faa'iideysan maxaad ugu diiday dad ka faa'iideysan adiga hadana doonin dad doonaya jira waxa way adduunku waxa isku qabsadaan dhaqaale way mar at the end of the day marka dhaqaale lagu qabsanaya Afrika marka hore soo aragteen dhalinyarada waxa ku dhacay Soomaaliya joogta inay markay iskuul bay wada galayaan iskuulkii bay ka soo baxayaan jaamacad bay galayaan way ka soo baxayaan shaqo ma jirto bal markaad waalidka kula soo dadaalay intaasoo sanadood uu rajo wax laalo wuxuu lacag haystay wuxuu kharashii adigii ku galiyay eed ka soo baxday iskuulkii ee hadana guriga soo fadhiisato ilmi maxaa ku dhacaya psychologically sidaa darteed badda iskugu tuurayaan maxay ahaydey oo ku dhimanayaan oo saxraaga ku dhimanayaan oo yani filimada laga soo qabtay haddaad aragto caloosh ku xanuunaysa waa dhalinyaradii Soomaaliya joogtay weligii intaa aan joogay ma ilaawin dalkan ka imaday waxaan ogaaday inta aan marayay meel aan darajooyin sare gaaray haddana waxaan ogaaday maalinta iraahdo Soomaaliyan ka imaday in laga naxo xageed ka timid originally Soomaaliya way naxaan dadku already waxaad noqotay hoosba in the eyes indhahooda hoos u soo dhacday waqti ana ku adkaystaa ha Soomaaliyan ka imaday wadan wanaagsan dad wanaagsan baan nahay dhibaatadooda adigu bood soo marteen dhibaatada ma kaan marayno baan ku idhaan waqti waddankan bariyad isleen jirteen baa jirtay sidaan isku leenahay asad uga soo baxday waan uga soo baxayna waana ka soo bixi karnaa waana iskaashan karnaa marka ninka loo dhiibo mas'uuliyad waa inuu horta gartaa inuuna ku helin khibradiisa iyo maxay hayday yani afkarkiisa iyo inuu ku helin waa tahay mas'uuliyad Ilaahay u dhiibtay ka sokoona dadka Soomaaliyeed u dhiibatay faham taa haddaad garan weydo oo dollarku Ilaahaaga noqdo de marka ifna weelkuma leh aakhirana weelkuma leh runtii waa lagu la xisaabtamaya aakhir waa lagu la xisaabtamaya